بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 10 bisha afraad ama Abriil 2020 waa fariintii saddexaad intii xanuunkani dalkan Turkiga soo gaaray aan soo diray fariintii hore waxay ahayd 23 bisha Maars waxaana ummadda Soomaaliyeed ku wargeliyay in aan safaaradiisa ku meel gaar ah u xidhnay fariintan oo aan iyadana guriga ka soo dirayo waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed dalka Turkiga degan la wadaago 5 qodob kow safaaradii sidii bay u sii xidhnaan doontaa ilaa iyo amar dambe telefoonadii iyo emailkii ku meel gaarka ahaana sidii buu shaqeynayaa cidii adeeg degdeg ah u baahan hala soo xiriiraan telefoonadii iyo emailkii aan hore u faafinay qodobka labaad sida aan horeba u sheegnay oo lagu soo celceliyay tilmaamaha iyo talooyinka dawladda Turkigu bixinayso hal loo hoggaansamo waan ogahay dad badan oo Soomaaliyeed oo u hoggaansameen guryaha ay ku jiraan laakiin wali waxaad moodaa in wali la inaga fiican yahay oo aynu inagu saddex socono oo aan la kala socnayn marka inta wali aan fadhiisana ha fadhiisteen hana u hoggaansameen tilmaamaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda caafimaadka sababtoo dadkan un baynu la duruufnahay xakameyntaas xanuunka lagula jiro inaynu ka qayb qaadanaa waxaadna kaliya uga qayb qaadan kartaa inaad gurigaaga joogtid oo aadan dadka kale u gudbin qodobka saddexaad fiisayaasha dad kusoo galay Soomaalida ah ee fiisayaashii ka dhacayaan sababtoo ay tahayna maadaama diyaaradihii la joojiyay iyagana annaga u maqan dalkan Turkiga aynu saaxiibka nahay warqad baan u qornay aan kaga codsanayno dadka duruufta in loo tixgeliyo marka cidii noocaas ah oo fiisa ku timi oo ka dhaco insha Allah maalinta marka mustaqbalka ay bixi doonaan hanala soo xiriireen waanu kafta kaalmeyn doonaa marka qaraamaadka iyo wixii kale ee dhibaato hadii soo gaari lahayd waa kala hadli doonaa insha Allah waana ka kaalmeyn doonaa markay baxayaan qodobka afraad ololaha uu hormuud ka yahay madaxweynaha dalkan Turkiga Sayid Recep Tayyip Erdogan oo ah ololaha solidarity-ga ama wax istarka xanuunkan dadka lagu kaalmeynayo oo aadka u ballaaran oo waliba midho dhalay oo dadka dalkan ku dhaqan ay aad uga qayb qaateen bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay ka qayb qaataan waliba si firfircoon intii karaankooda ah qof waliba intuu bixin karo uu kaga qayb qaato sababtoo ah dalkan waxaynu sunnahay waynu naqaanaa waynu ognahay waynuna ogaan doonaa marka laakiin waxaa looga qayb qaadanayaa xisaabaha ama akoonnada ay dawladdu u furtay ee madaxweynaha xafiisku sufaafiyay kaliya ayaa lagu shubi karaa wixii taakula ah meel kale laguma shubi karo xitaa dadka Turkidu kuma shubi karaan meel kale xisaabaha kaliya ayaa la ogol yahay qofkii wax taraya ku biiraya xamladaas xisaabaha dad badan oo Soomaaliyeed oo aan ogahay way ku dareen wayna kaga qayb qaateen xisaabaha bayna ku shubeen marka inta hadhayna ha ku daydeen oo xisaabaha la furay ha ku shubeen lacagta hadii la haydmo qodobka shanaad bishii barakeysneed Ramadaan baa inagu soo foole Soomaaliduna duruufo gaar ah hadda haysta oo wad ogtihiin oo dad aad u badan oo meel walba jooga Soomaaliya jooga wadamada kale jooga Turkiga jooga waxay ku noolaayeen xawaalado loo soo diro dadka xawaaladaha soo dirayeen duruufahan maanta ina haysta ka daran baa haysta oo wad ogtihiin xawaaladihii laftigoodu lacagama soo diri karaan waad la socotaan marka bulshada Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan kula talinayaa ama ku boorinayaa inay wax istaraan oo siday horeba wax isugu tiri jireen gurmadyadii la isu sameyn jiray ama daadad ha noqdeen ama abaar ha noqdeen tanna waa gurmad kale marka intii meel wada joogtaaba ha isu gurmato deriskiisa waxa taro qof waliba qofku yaqaan waxa taro ha ka soo warbixiyo waliba dadkan Turkiga degan ee Soomaalida waxaynu ognahay dad badan inay caafimaad u yimaadeen oo ay ku xaniban yihiin halkan dad badan inay duruufaysan yihiin oo $100 ama $200 loo soo diri jiray oo ay helayn caailad badan baan ognahay oo dhibaataysan marka dadka Soomaalidu runtii waliba gaar ahaan dumarku inagu xagga dumarkeenu ka noolahay dumarku ha ogaadeen oo ha ka warhayeen dadka walaalahooda magaalo waliba ha iska warhayso magaaladii isu taag weydaan magaalada kale ha u sheegto qodobka ugu dambeeya oo shanaad ama lixaad waxaana soo gaaray warar ah in dadka qaar intay suursadeen oo magac isu bixiyeen ay xisaabo ama akoonno u furteen inay dadka lacag kaga ururiyaan
iyagoo magaca jaaliyadda Soomaaliyeed isticmaalaya, iyagoo magaca safaaradda isticmaalaya. Arrintaasi runtii arrin laga naxo weeye, waana arrin khatarteeda leh. sharci ahaan arrin sax ma aha. Wadankan Turkiga cidda lacag ururin kartay la ogol yahay si public ah inay lacag ururiso waa jimciyad la diiwaan gashan oo la yaqaan, oo meeshii wax geynaysa la yaqaan, oo xisaabaheeda la yaqaan, oo boardkeeda la yaqaan, oo akawnadeeda la yaqaan weeye. haddii safaarada lacag ururinaysana waa la yaqaanaa. oo haddaynu guddi magacaabano, waa inagii hore waxaa caadi inoo ahaan lahayd inaynu guddiga warqad ku magacaabano, safiirku soo saaray. guddiga unbaa sharci u ah inay wax ururin karaan. laakiin 10 qof intay meel isu tagaan oo magac samaystaan iyaga u gaara inay yiraahdaan lacag baan ururinanaa, arrintaasi sharci sax maaha. dhalinyarada horboodasana waxaan kula talinaa inay ka waantoobaan, sababtoo arrintaas iyaga laftigooda sumcad xumay ku tahay. sababtoo lacag aadan hadhow cidi kaa xisaabinayn oo inta kuusoo xarootay la garanay, oo wadankan account aadan ka sharciyeysnayn, dee dhibaatooyin badan baa kugu iman karo xagga sharciga ah. ummadda Soomaaliyeed magaceeda isticmaalisid, safaaradda magaceeda isticmaalisidna iyadana dhibaata kaaga iman doonta iyo su'aalo iyo hadhow aadan ka bixi karin. marka iyagana waxaan kula talinaynaa in ay ka waantoobaan. qofkii wax qabanaya siyaalo badan wax u qaban karo baa jira. marka saas intaasaan kusoo gabagabeynayaa. wabilaahi tawfiiq.